darteed lacag ay xamar laga soo diray dad la yaqaano oo ganacsada ah ayaa lacag xamar ka soo dirsaday lacagta ruud badan bay martay laakiin ugu dambeyn waxa ma taqaan lacagta lagu shubay oo loo dhiibay nin xawaalada ka shaqeysto Sheekh Xasan Lilaahdo reew Xasan Fahad Yaasiin isku ama ilmaadar yihiin ama adeer waa xasaas adiga oo Talyaaniga diga Faransa degan ayaa lacagta lagu wixii Allah waclam ilaah naga og dadkan lacagna waxa laga yaabaa inay dad ay darahooda fiirsan ganacsigooda fiirsanaya inay yihiin waa laga yaabaa in dad arinta kiiska ku lug leh ay yihiin waa laga yaabaa marka aniga ma judge gareynayo ma dhigi karo hebel oo ku jira laakiin xogtan haya saxda ayaan idin sheegaya arinta dawladda Talyaaniga way ogaatay markuu ninka lacagta lagu wixii ninka ragga lacagta u dhiibay 13 baawur ayaa la soo gaday baawurta si spare party loo furfuray kadibna Belgiumka la keenay dekad Belgiumka laga dhoofiyay Antwerp laga dhoofiyay saas Soomaaliya u tagtay Soomaaliya markay tagtay waxa la sameeyay baawurta 13 ahayd qof kastaba mid loola baxay baawurta waxyaabaha aan ka shakiyay kamid tahay hal shirkado ganacsi ma qaadan baawurti la wada lahaa ee la soo wadi iibiyay waxa loola baxay hal baawur loola baxay kadib hadana notaris ayaa la geeyay hada baawurka qarax sameeyo kala notaris timacada la geeyay oo lagu kala wareegsaday notaris notayo ku taala muqshuul timacada ayaa la geeyay lagu kala wareegsaday baawurkan dekada marka laga soo bixinayay baabur kastaba qof aad damiintay waa baawur ciidan kadib baawurkii waa la waday ma qofka waxa fahmi kara arrimahaas qofka muqaabaraadka ama sirdoonka ama baarista barta ayaa fahmi kara waxa weeye markii fal la sameeyo waxa loo sameeyaa ruudad badan raatirasho badan ayaa la sameeyaa inaha meelo badan ayaa la soo marsiiyaa oo lagu raatirtaa marka baawurka dhowr jeer baa si iibiyay sida ka muuqato raa'isa kadibna baawurkii waa la waday oo afgooya la geeyay oo beer ku taal afgooyay ayaa lagu soo raray explosive kan halista marka hore Soomaalidu waxa leeyahay xabarta aamina qofkii inta baaristan gala kolba dad ajnabi iyo Soomaali way galayaan baaristan qofkii inta baara keena inay arintan nimanka shabaabka leeyahay mahad karatay groupkiisa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un waxaan doonayaa marka hore bal inaan ka hadlo qaraxii dhacay baabuurkii loo adeegsaday halkii laga qaaday iyo sidoo xaalku yahay iyo xogta aniga aan hayo wax kasto ilaahay baa og laakiin baarisan sameeyay baarista ayaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago baawurkaas iyo 12 baawur kale 13 ku ahaa waxa laga iibiyay Talyaaniga laga qaaday dalka Talyaaniga laga iibiyay dawladda Talyaaniga baawurta ciidamada baawur ciidan buu ahaa baawurta ciidamada in la qaado Soomaaliya loo qaado way mamnuucdo sharci soo saartay sida darteed lacag ay xamar laga soo diray dad la yaqaano oo ganacsada ah ayaa lacag xamar ka soo dirsaday lacagta ruud badan bay martay laakiin ugu dambeyn waxa ma taqaan lacagta lagu shubay oo loo dhiibay nin xawaalada ka shaqeysto Sheekh Xasan Lilaahdo reew Xasan Fahad Yaasiin isku ama ilmaadar yihiin ama adeer waa xasaas adiga oo Talyaaniga diga Faransa degan ayaa lacagta lagu wixii Allah waclam ilaah naga og dadkan lacagna waxa laga yaabaa inay dad ay darahooda fiirsan ganacsigooda fiirsanaya inay yihiin waa laga yaabaa in dad arinta kiiska ku lug leh ay yihiin waa laga yaabaa marka aniga ma judge gareynayo ma dhigi karo hebel oo ku jira laakiin xogtan haya saxda ayaan idin sheegaya arinta dawladda Talyaaniga way ogaatay markuu ninka lacagta lagu wixii ninka ragga lacagta u dhiibay 13 baawur ayaa la soo gaday baawurta si spare party loo furfuray kadibna Belgiumka la keenay dekad Belgiumka laga dhoofiyay Antwerp laga dhoofiyay saas Soomaaliya u tagtay Soomaaliya markay tagtay waxa la sameeyay baawurta 13 ahayd qof kastaba
mid loola baxay baabuurta waxyaabahan aan ka shakiyay kamid tahay hal shirkadoo ganacsi ma qaadan baabuurtii la wada lahaa ee la soo wada iibiyey waxaa loola baxay hal baawara loola baxay kadib haddana notaris ayaa la geeyey هذا باوركان قال حسميه كل نوتاج تمع عدا اللي جيه ولو كلا وركسدي نوتاج تمع عدا نوتاريس نوتايو كنت على مغسولة تمع عدا أيا اللي جيه لو كلا وركسدي باوركان ده كده لما مركل جالس بحين أي باور كاستبقى في الضمينتي وباور إذا كده باورك والله ودي ما قفك واحد فهم كرا أنا بس قفك مقابرات كأما سردون كان بارستا برتاء يفهم كرا حوي مركي فلا سمينا أيوه حلاص سمية رود بن راترشة بدن أيالا سمية إنها ميلا بدن أيالا صامر سيا ولقول راترتا مركا باور كده أرجع بالسي إي بي السي بي سيدا كم موقته رئيسة كدمنا باوركي waa la waday oo afgooya la geeyay oo beer ku taal afgooya ayaa lagu soo raray explosive kan halista marka hore Soomaalidu waxa leeyahay xabarta aamina qofkii inta baaristan gala kolba dad ajnabi iyo Soomaali way galayaan baaristan qofkii inta baara keena inay arintan nimanka shabaabka leeyahay mahad karatay groupkiisa ay ku lug lahaayeen qofkaas waa qofiga aqoon badan oo anigu wax ma aqaano wax ay ciyaal Soomaali soo dhoobeen ma waxa dhacay waxa weeye waxay dawladda shisheeye ku lug leeyihiin shisheeye ku lug leeyahay waxa dhacay waxa weeye wax laga soo shaqeeyay muddo weeye baawrkan afgooya la geeyay inta xog ku hayno anagu indhahana ma dhigahana ma leeyin ninka gaariga wadana nin la yaqaan weeye oo nin markii la istaajiyay dhowr checkpoint lagu istaajiyay la sheekaystay la aqooday meesha ku soo jeedo la yaqaano ciido markaas xirka la og yahay way inaan mar raba aan xoog u dhex galo oo aan dadka baarista wada aan carqaladeey mar rabo laakiin baawrka halkaas la geeyay baawrka qaraxidii iyo shidaal waxa lagu fuustay shidaal lagu soo raray inta checkpoint soo mara gaariga marka waxa weeye baawrka horta xogtiisa sidaa weeye oo ruudkiisa Muqdisho meelo kale Yurub kamida kadib Talyaaniga France ninka Sheikh Xasan Lilaade Reew Xasan ninka Reew Xasan marka hadda xaruntiisa Ilays meel oo shirkadu lahaa oo xawaaladaha ayuu lahaa magaca Ilays u furaa imika dawladda Talyaaniga way xirtay 7 maalmood gudahoodna maxkamadda la saaraya raaca kiiska halkaas Talyaaniga ka soo bilaabanaya marka horta kadib burjumku imaanaya yaa garoonka yaa dekada burjumka ka dhoofiyay baawurtan kadib wuxuu tagay xamar haladii loo qaatay yaa qaatay inta qof oo qaatay meeqay ahaayeen ana hadda xog waxaan ku helayaa 4 ay ahaayeen baawurta hadda la soo raray 3 kala taala wali marka waxa weeye shabaab ayaa ka sheekeynaya shabaab waxay ahaayeen argixis ay ahaayeen laakiin shabaab iminka waa laba qayb wey shabaabka la sheego qayb waa qaybta Aldeere iyo Mahadkaratay iyo Ahmed Diiri ninkii mataqaana la lahaa iyo groupka wey qaybna waxa weeye waa qaybtan ninkan mataqaana laga dhigay agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya maryaxaan Sakariye Xirsi iyo ninka raxaweyn leesaan Muqtaar Roobow oo asagana ahaa ku xigeenkii amiir ku xigeenkii al-shabaab ahaa way qaybna marka su'aasha waxay tahay Sakariye Xirsi shalay wuxuu ahaa taliyaha amniyaadka al-shabaab mataqaana amniyaadka al-shabaab waxa weeye qarax kasto dhaca cid geysata qof kasto la dilo qofka disha waa kuwa dilka oo weerar kale amniyaadka weeye kuwa qaraxyada dhigay amniyaadka weeye kuwa technicianka farsamay amniyaadka weeye kuwa xooraanka ee xogta soo aruurinaya waa amniyaadka weeye waxa la isku leeyahay amniyaad marka ninka maryaxan wuxuu ahaa
تريه أمنيات كالشباب BBC ورباهين تيصل الله الله مالك ساكت دعوة كرتا وحق صار معه تيفي ذا وقرتي وصلت CIA ذا كأركرتان إنه أها العقد بدن $1 مليون مدح يستعلي وجوجل كري كرتان سكري حرسي نينكي شلي مدح يساريت أنت أسوي مليون بلاك ليست كوجر مريكان كا ninkii shalay weerarkii lagu hoobtay ee kan kala ahaa hotel Sham oo aqoon-yahanadii ardayda lagu dhameeyay soo abaabulay ninkii weerarkii lagu hoobtay ee hargaha isaamaha soo abaabulay ninkii weerarkii lagu hoobtay ee mataqaanaa Umar Xaashi iyo laqayn iyo lagu dilo soo abaabulay ee amniyaadka haystay ninkii shalay tiyaatarka weerarkii Cabdiweli Gaasi oo qudbaynay la eegtay ogeedeen wuxuu ka dhacay tiyaatarka ee dad badan wada aqoon-yahan looga dhinteen soo abaabulay ninkii inta soo boqol oo generaalo iyo korneelo iyo wax walba leh iyo wariyaal dilay yaa soo waday horta kow haddii la soo wado la keenay yaa xilka u magacaabay baarista halka ugu wanaagsan halka ugu yortay inoo la fiiriyaa yaa soo waday ninkaas kariye yaase xilka agaasimaha sirdoonka qaranka in qofka noocaas ahaa ee dambiga inta la gaaray isagoo wali hadlin shacabka la hadlin وفاهين قديديسي يا وي قفك كدغا agaasimaha sirdoonka qaranka maxamed cabdullaah farmaajo ma ka dhigay ma fahad yaasiin ka dhigay ma xasan cali qayra ka dhigay ma sanbalol shaa ka dhigay hortiya ka dhigay hoos ma la soo weydiiyay okay waxa weeye ninka adarkiisa kariye دولة شيء أجنبية أيها تريها للسوق حيوم الكهر وشقيناه دولة داس أيها كنتي فهد ياسين قعنت كساعتي فهد ياسين يحس على غيره يعد رساق شوله ويرني من كهالك فرماجو جيو يري أجاسمها سرطان كقرن كهلا قد يجنكان simple وحوي أبي زوما aniga aragtida dawladdaas weeye iyo kooxdaas groupkaas weeye waxa arintaas qaraxa dhacay abaabulaya waxa dhacay alla ama kaagteen 300 intaas qof ku dhimatay 300 intaas kale ku dhaawacantay ama 400 intaas ku dhaawacantay wax ka sii daranna way ku fikiriyaan way soo wada wax ka daran ay ku fikiriyaan ay soo wada qofkii been rabto waa ayada qofkii rabto qofkii xanuun ku hay dadka dhintay saan kul baa dadkii eelkii way inta dhimatay marka la fiiriso 200 dhowr qof waa dadkii eelkii yahay mid abtii ah mid adeeri yahay mid la shay mid walkay dhalay mid wala shay dhashay ya way waxa dhinto oo meesha ku dhinto waa dad un saas wada mid ayeeyay dhashay mid ayeeyay reewgi waa un dad saas isku la 200 dhowr qof oo kamid ah marka qofku xanuun ku haynin wuu iska caytami karaa wuxuu rabo dhigi karaa qof iska daacadnimo iyo sirraan ku necb anigu dhageysama warkiis marka waxa weeye arinku sidaa way waxa wax ka darna way soo socdaan haddaba muxuu ahaa ujeedka laga lahaa qarax waxa weeye maskax yar oo maskax shabaab oo iyo maskax ISIS iyo maskax kale ama farsamo ISIS iyo farsamo al-qaa'ida ma sameey karaan qofka doontaan u sheega meesha maraykanka hala keeno Israa'iil hala keeno kulli cid kasta hala kaashado qaraxaas ma sameey kara cunug yar oo Soomaali ma sameey karo marka waxaan wax laga soo shaqeeyay dawladda shisheeye ay ku jiraan dad qobolada ay ka shaqeeyeen explosive ama qaraxa ilaa inta gooyay inta fuustooyinka lagu rakibay jaha kasta soo maray gubay si qofku badbaadin baabuur aysan hay'adaha ammaanka ogeyna ruudka inta la soo mari karo marka arrimo badan saaran waxay ahayd طبعاً كبشوا حكوا كمان أنت قلبي رجع كيسي جودي قالوا حصار الله قبتي يسوق بيار أنت اللي بعده حوي أنت حيصدق على السي معمول قبل هذا وحلي بقى النادي معمول قبل هذا مثلا أما السنة هذا أما حلي بقى هذا يقضياشي قبيل هذا السياسيين تود أنتوا بقى الشر استوجوا وذين وأتيشن كالك أو كجيد أنا صدق هذا حوي حيصدق قلمته كتاجنيت odayaashii qabiilkaas xildhibaanadoodu hotel safari ku shirayeen
arrimaha iskaashada oo taagnaa oo political crisis-kaas taagnaa si loo wiiqo loo mataqaanaa loo burburiyo dadka shoog loogu rido ayaa weerarka u dhacay haddii la soo baaro kiiska waa inta aniga qabo inaan qalad galno waa laga yaabaa qof bini aadan ah laakiin marka ilaa xalay ilaa shalay shaqeynayay maxkamadda talyaaniga loo sheegi doontaa baaristi kolba afar kaloo nimanna waa la hayaa ninka reew xasanna waa la hayaa maxkamadda talyaaniga waa sugaynaa iyo booliiska talyaaniga hay'adaha ammaanka way soo saari doonaa wax qarsoomi doona ma aha website leeyihiin waa la soo geli doonaa wixii la arkay laakiin waxaa idin sheegayaa waxa weeye Soomaaliya waa lagu loolamayaa Soomaaliya waxa ku loolamay dawladda shisheeye isku haya dawladda isku haya darteed waxa dhici doona waxyaabo xun ayaa dhici doona waxyaabo xun ayaa dhici doona sida ogtihiin inta badan maamul goboleedyadu waxay la safteen inta badan maamul goboleedyadii waxay la safteen imaaraadka Sacuudiga inkastoo kuwa ay yihiin kuwa ugu dulisan ugu xun Soomaali nacaybka oo maanta waa arkaysiin walaalaha Turkiga inay diyaarad geeyeen wasiirka caafimaadka booqday ma aragteen imaaraad wax ku deeqay ma aragteen Sacuudiga wax ku deeqay ma aragteen wax dan kale ma aragteen haddana maamul goboleedyadu waxa la arkay in ay la safan yihiin imaaraadka Sacuudiga oo qadar ay go'doominayaan laakiin dad baa ugu sii daran oo qadiyadii galmudug fashiliyay oo dhabarka u ritay dadka awooday dadka bartilmaameedka dadka in cabsi lagu rido in la laayo waa qadiyad siyaasadeed weey waxa weeye ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ninka Xasan Cali Khayre xagga u fiirnaya garabkaas abgaal yaa ku haysta kursiga abgaal yaa kursiga ku haysta habalgeer horna waxa ku sheegay daxstaan video qorshihii ahaa in la kala hormariyo qabiiladan siyaasiyiintooda habargedir iyo abgaal in la kala hormariyo daxsataan iyadoo video iska ka baara kartaa marka waxa lagu heshiiyay daxsataan habargedir marka hore gudiga loo magacaabay say daxsunina dibaan idin xasuunayna ana idin soo saaray mar labaad ayaan link idin soo gelinay saad u fahamtaan dagar socod arrintaana waxay ahayd halka waxa la doonayay xildhibaanada habargedir iyo odayaashooda in lagu baabiyo sidii berigii Mareykanka kale u duqiyo kale in dhulka la gooyo in arrimihii qalbi dhagax lagu qariyo in xiisada maamul goboleedada ayaama looga nasto lagu qariyo sidaas ay ahayd maskaxna ma ay ahayn maskax Soomaali kale soo degtay dawladda shisheeye ku lagu lahaa xogta aan hay'ataa weeye waxyaabaha kale dhac waxa kamid ah in dadka badbaado aan loo rabin oo qof kasta oo ku rumaysan karo habeenkii waxa dadka loo gurmado waa arrin fiican laakiin wadooyinka laga xirtay hal wado oo qofka qof dhiig u shubayo oo mara muuse ma ahayn wadooyinka oo dhan baa xiran dadka loo gurmada la yiri hadda wadooyinkii la xiray marka dadka dhiig baxay dadka guriyaha ku soo dumeen ee hoos jiray dadka dabka haystay baabuurka isagoo qofkii ooyay qaylna hotel safari ka dhex ooyayo ya sabir nuur lugay walaalkii ee baa naxariistay soo gubanayo qayliis la maqlaaya baawurka dabdamiska haloo waay qof ku jira ay meel kale ku mashquulsan yihiin marka arinta jirta taaswi waxa rabtiin soo maaha inaad ogaataan sida arinta hadana ahayd gudiga baaristaanka warsugaynaa ninka baawurka waday baawurkiyo sawiran wixii waa la helaa inta checkpoint soo maray taliyaashiya joogo arinta kale waxa weeye oo in laga hadlo mudan wiilayga walaashay dhashay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe la dilay taliyaashii xilka looga qaaday kuwana waa la xirxiray waa sax talaabo fiican bay ahayd intii hore soo dhibska dhaaf 300 intaasoo qof oo dhimatay 400 intaasoo qof oo dhaawacantay oo ilmuhu gogo'een oo aan la aqoonin qaarkood meedkii la isku haysta kana ani meedkii way la aqoon way gubtay ma maqasheen qof xilka looga qaaday ma maqasheen qof loo xiray ma maqasheen
ما جرت لأنه وحل أجي هاي وحل لا هاي تذكر الصومالي واحد وحاول منيش الصومالي فاهم سينا مركب وحاول بس حويه والشيء اللي كوسو دقيان وليبا تذكر موسيقارهان وحل لا تذكر لبطة ضبادي أوينيا الصومالي ويقيرونيان كدب لو أسكي إلا باين أنت أصاب بقول وقف ولا قد لي أنت أصاب بقول ولا قد أسكي إلا باين مركادوي إذا كوسو ليردان هلا يا ونينا خلنا قدام بيسين الشيء وحوي محمد عبد الله فرماج مسحس على غير ويقول أرنيا أرجع جحسك ليا كهالسين مالك حارس بدم بيكو حرينيه فهد ياسين يحس على غير رئيس الوزراء فهد رئيس الوزراء تابد عبد النكر الدقة مقالة الله مقعاوي نيكي أقاسم كحويان كم مدحتويدا هي عبساق شو اللي يراهدو مالك حارس بدن شباب كي إيسك أشياء يكون حرينيه taasna haddaad ogaanaysaan qof kasta oo muuse joogo siyaasi ama xildhibaana ama sargaas doon ka tirsan ama amniga ka tirsan ah kaliya ha soo ogaado magaca shirkadda security company-ga ah ee uu sameystay Fahad Yaasiin ha soo ogaado qof kasta oo Soomaaliya ha soo ogaado kaliya 2000 ee qadar loo qaadayo ee dhalin Soomaaliyeed hal qof ogeyn waxa loo qaadayo Fahad Yaasiin oo qortay ee min $200 laga qaaday ee aan loo sheegin waxa loo wado halka loo wado 3 bilood waxa la qaadaya 200 oo wiil la qaadaya qof kasta oo Soomaaliya soo ogaada kaliya 200 wiil la qaaday maxay soo qabanayaan maxaa la soo baraya maxay dalka soo laabanayaan 2000 oo inta qadar la geeyay wixii shaqadoodii la soo baray iyo wixii rabeen lagu soo tababaray oo dalkaas ku soo laabanay maxay ku horseedi karaan أما ملقبلات أهو أما أضر رقمات أهو هذا ضمير لا ده هو قف صومالي تاي هذا تاينين قبيل كيس مثله أو حقرته واحد هوسو إكتاس سكرية حرسي نيجي شباب كعشان الدمينة يا أجاسمها ستون كقرك كدقة يا كين صدق معشان بارلمان داته قدومي بارلمان تاي أما حلبان تاي بل سويدي كري أنت هذا أضر رقمات أما جن عصته سويدي كريه هذا وحقرتود بارلمان تاي أما قف متشو أما أقل سراجوج أما أقل هوس جوج أما أضد رقمات هاو أما نين سياسي هاو أما وزير هاو شركة دارو فهد ياسين سميستي دنيدا إمجريشي كسفك أوجري باسبور هذا الله جرى معناه والله بقولقف دنيدا حقي الله وضع محي سوق بريان بارلمان كم اللوجي يرني كشركة إسكال ملاييري دنيدا أود حاجات وضع محي دالك قدر كسوق بريان والله إني سوقي والله كوبا الله الله يدعني يرى أما ضد بدو يقصوا وعي ويقول كل يوم وحبرش عن لو هالي ده وحبرش لهم حتى القوة يا مركا أنا وحاس لي يصدق بقولي أنت أصلي مطي وحكحنا الصوص صعب هذا أنا ما شعب كنت كعان إسكعرين إنه هو ضفورين arintan baaristeedu way adkaanaysaa sidii qalbi dhagax arintiisa loo maldahay oo loo laalaabay oo hadda arkan u socoto kale u soconaysa wax ka soo naasa cadaha ay habeeratay ma jiraan haday laba qof ajnabi ku dhiman lahayd kiiskaasi meel xumbo lugta gali lahaa laakiin hadda sida muuqata hadana baarlamaanka inta kaco dadka shacabka kacaan wax garadka kacaan hadana laga dhiidin maya كان واحد كبر لان قاضي هدانا ديمان اون ميدك عفيه لديهن ان ay tusii maxkamadda Talyaaniga qofkii lagu maxkamadeeyay dadkii loo maxkamadeeyay liinkiga website-kaas go'aanka maxkamadda ka gaartay wixii lagu xukumay shirkadiisa koobigeedii wixii sawirkiisa aan keeno ma kama dhignay in nidaamkaas dambi ku lug leh dad waxa laga yaabaa ganacsatada yihiin bisaaqad raadsanay laakiin waxa leeyahay baawrka maxaa u soo qarasheen u furfurteen hadda ka damburjin ku dhoofsay baawrta سؤال تاسوي هذا أوقات إنه دمبي باورك إن لا دوفي سما لا دوفي ما حد يقول لي تاني أنت سؤال تاسوي مركا بني يا جبا حالي وأوجاهي على دايرة حالنا نقول الجريشيس إن الشيطان قرح الشباب لك واديدين الشيطان قرح أنا ذكي أبي هو اللي هي ولا يقانا
laakiin waa nasiib darrada aynu daawano maalin kasta aan marqaatiga ka nahay in nin dadka uu dilay uu laayay dhaawacood inta soo qaad isbitaal keeno kadibna uu dhiig u shubo oo isku sawiro waxa weeye waxa dhaca waa nasiib darrada waxa kala dhacay dadkii meydkooda xitaa inaan la aasin oo la duugi waayay marka maalintii ka caddaay ayaad ogaatay yaa ku walaal ayaase ku walaalahayn dowladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga inta waxaan leenahay mahadsanidin shacabka Soomaaliyeed waa u soo gurmateen wayna arkeen reer Muqdisho waliba gaar ahaan dadkii dhintay ehelladii qoyskoodii abaal bay idin hayaan hiil baad noo muujisan anagu ma arag qadar waxna siisa Sacuudi waxna siiya ma arag Sacuudi noo soo gurmada ma arag Imaaraad noo soo gurmada ma arag waxaan u haysanaa uun kuwa dhibkeena ka talnaa inay yihiin waa daahir cala soo la dabaysha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhimatay bahaw naxariisto inta dhaawacana caafimaad degdega ayaan rabbi uga toogayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.